8 bilyan oo qof ayay gaadheen aadanihii ku noolaa arlada guudkeeda. Cidhiidhi laxaadle ayaa laga dareemayaa heerka filnaanshaha dalagga iyo wax soo saarka adduunka. Warshadihii tirada badnaana waxay xididada u siibeen cimiladii fayoobayd. Dunida oo dhan hal qaarad ayaa ku taagan bamba la aasay oo halis badan. Dhowaan markii la diiwaan geliyay dhashii ugu horreysay ee 8 bilyan ku soo biirta. Yurubna waxay la tukubaysay da' gabowday oo geerida sugaysa. Qaaradda duugga ah. haddii aad booqasho ku tagtid dalka Faransiiska aad Baaris u wacatid ka hoos tustid towerkii dheeraaye astaanta u ahaa magaaladan su'aal weydiisid bulshada ku dhaqan halkaas maxaa sabab u ah gabowgan shaabada idinku noqday iyo dadkan falaaga ah ee wadooyinka qulqulaya waxay markiiba kaaga bilaabayaan in qaaradu soortay ilbaxnimooyinkii Giriigga Roomaanka iyo Byzantiniga kana mid tahay dunida taariikhda weyn ee Aasiya iyo Afrika waxaad moodaa inay iska indhatirayaan xaqiiqada qadhaadh ee eray bixintan laga soo xigtay dadka gaboobay ee qaaradu la circiidaysay in loogu magac daray ayay hilmaamayaan halkani waa Madowlas TV haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir lana wadaaga asxaabtaada Yurub waxay gabaad u noqotay boqolayda ugu badan daadda waaweyn ee dunida balse markan arinku ka gedisan yahay sidoo hore waxa uu soo dhacwaaliya ku yimid tirada carruurta dhalanaysa ee Spain Faransiiska iyo Talyaaniga awalba khaati ka taagnaa Ingiriisku calanka cas ayuu taagaya haweenkiisana waxa uu dhaqaale abaalmarina ku siinaya tirada ubadka ay dhalayaan Josep Borrell oo arrimaha dibadda u qaabilsan midowga Yurub waa ninka warkan dhilada ah la wadaagay saxaafadda waraysi uu siiyay TV-ga LSI ee Faransiiska laga leeyahay waxa uu ku sheegay in heerarkiisii ugu sarreeyay uu gaadhay engaga haysta qaaradda ee tirakoobka adduunka jilaalkii gabowga tilmaamtaas ayuu siiyay Borrell khatarta ku soo wajahan Yurub 8 bilyan ee lagu qiyaasay inay dunida ku nool yihiin 1 bilyan oo ka mid ah ayaa jabiyay silsiladda 60 jirka tan argagaxa badanna waa in 20% ay ku nool yihiin qaaradda Yurub bamba aasneed ayaa gacanta ugu jirta bulshada Yurubiyaanka ah hanjabaadna ku haysa inay ka masaxmaan jiraalka sanadkii 1950kii boqolayda dadka reer Yurub ee 70 jirka gaadhay waxay ahaayeen 12% balse tirooyinkani way laba jibaarmeen waqti xaadirkan siday saadaaliyeen khubarada cilmiga demographiga marka la gaadho sanada 2050 in ka badan 6% waxay noqonayaan dad gaboobay taasoo la micnaa in qaaradda Yurub geeri u tafaxaydanayso dabiiqada qarnigii 20aad qoysaska Yurubiyaanka waxay dhali jireen 3 iyo in ka badan oo carruur ah balse qarnigan 21aad qoysaska qaar ayaan u hanqal taageen inay carruur ku soo kordhiyaan dunida waa dunia ay u arkaan inay wasakhowday oo aanay mudnayn dhallaankoodu inay qayb ka noqdaan hagardaamada dhanka kale waxaa 60kii sano u dambeeyay sare u kacay dhererka dadyowgan iyagoo 80 iyo 90 jirba gaadhay dhalintii yarada ayaa madhalays isku wada riday siday ubad uga baqanayeen waxaanay haweenku qorsheeyaan inay dhowriyo 30 jirka ku guursadaan tilmaamayaashan oo dhami waxay dhiirigelinayaan in bambadii tirtiri lahayd reer Yurub ay qarxayso mana aha mid ay diyaar u yihiin xalka kama dambaysta ay kaga baaqan karaan xaaladan hanjabaadda ku haysa jiritaankooda waa inay xuduudaha u furaan soo galootiga ka soo firdhaday wadamadoodii Yurub ayaa sanad kasta qaabisha 100,000 oo qaxoonti ah ujeedada ay ka leedahayna waa inay sare ugu qaado tirada dhalinyarta bulshadeeda heerka dhalashada dhalaanku ay dhaqaale ku bixiyaan dawladaha reer Yurub waxa uu ka gufeeyay kaalmihii banaana ee shaqooyinka asaasiga gaar ahaan waaxda caafimaadka oo aad u cabanaysa sanadihii u dambeeyay warbixin la soo saaray sanadii 2021 waxa ku xusnaa in 5% dadka soo galay qaaradda ay sharci darro ku joogaan dadkan laajiga badanaaba waxay la kulmaan cunsuriyad iyo quursi joogta daraasad la sameeyay ayaa ganjada ka furtay in dadyowga qaar ay door bideen inay gaboobaan oo dhintaan ay ka qumantahay inay la falgalaan isra kale oo xurriyadu haysta inay muwaadiniin Yurubiyaana noqdaan tan iyo tu kaleba waxay noqotay caqabad ka haysata dawladaha inay bulshadooda ku qanciyaan waaqica cabsida badan si la isugu dheeli tiro dhalaanka cusub ee soo kordhayay iyo duqeyda waaweyn waxay dawladahan u sameeyeen wax kasta si ay u gufeeyaan gadololooyinkaas waa lagu tilmaami karaa inay bad qabto qaaraddu waqti xaadirkan ee timaadada ayaan sareeda ugu jirin waxaa ugu muhiimsan ay reer galbeedku ku faanaan waa ciidankooda awoodda badan waxaanay ka cabsi qabaan in halistani gaadho xoogagooda cadowga ka jira oo kartidii iyo sumcaddii wanaagsanayd ay lahaayeen kaga dhex ambato masiibadan Borrell waxa uu waraysigiisa ku xusay aragtida isbeddelkii weynaa oo ah fikrad ku qotanta shirqool la damacsan yahay cirqiga Faransiiska iyo reer Yurubba isbeddelkii weynaa waa aragti si gaar ah u saameysay xisbiyada midigta fog iyo qolyaha qabyaaladaystayaasha markii ugu horeysay la maqlay aragtidan waxay ahayd sanadii 1900 ninkii lagu magacaabi jiray aabaha Faransiiska ee Maurice Bere ayaa wargeyska la joornaal ku daabacay qoraallo muujinaya khatarta soo socota magaca Faransiiska ayaa laga yaabaa inuu boodhka iska tumay isirkii Faranjiga ah uu ka tirtirmi doona oogada sare dhulka
waxa qabsan doona dhulkeena dadii aan waxba iskaga tirin doonin awoodeena taariikhdii awoowayaasheena daaqada ka tuuraya Morris waxa uu ka digay xaaladda Yurubta diirka cadeed ku soo wajahan ilaa hadda waxa jira dadii u taabacsan xaq jirnimadana aan ogolayn ab kale inay kula noolaadaan qaaradda ku tarmaan oo ay ku qaataan dhalashooyin xaq u siinaya xuquuqdii muwaadinku lahaa inkastoo ay soo galeytigu yihiin xalka kama dambaysta ee lagaga baaqsan karo gabowgan ku baahay qaaradda haddana dawladuhu waxay khaati ka taagan yihiin iska caabinta Yurubiyaanka fikradooda tan araxda ka jabisayna waa in wadamo badan ay gacanta u galeen xisbiyada midigta fog oo gabi ahaanba ka soo horjeeda ajaanibka aan sharciga haysan dayr adag oo aan la mari karin ku noqday qaxoontigii midowga Yurub qaabili jiray sanad walba si kastay ahaato madaxda reer galbeedka ayaa ku dadaalayay inay iswaafajiyaan rabitaanka shacabka iyo xalka lagu doonayo badbaadinta bulshada waana arrin wadna qabad ku noqotay kadib markii bulsho tiro badan ay aamineen in isirkooda xididsiib lagu hayo oo qaaradda madow iyo Asia ay ku heshiiyeen sidii Yurubna ugu darsan lahaayeen waa aragti shirqoolada ay adag tahay in si sahlan looga fujiyo cidda ay laabta u gasho sanadihii u dambeeyay waxa soo galootigu qabsadeen jogooyin muhiim ah oo masiirka bulshada gacanta u galiyay dhawaana waxaynu arkaynay Ingiriiska oo nin Hindiya ra'iisul wasaare ka noqday golayaasha baarlamaanka deegaanka iyo xilalka kale hoosaba qaxoonti ayay u gacan galeen Soomaalida ayaa iyaguna qudhoodu kaalin muhiim ka ciyaaraya tala qaybsigan baahsan tan ugu daranna waa in muslimiintu oo ahaa kuwa lagu xaqiro qaaradda ay noqdeen kuwa tuweyn oo ku baahay arlada reer Yurub haddaba daawada maxay kula tahay dhiiladani ma waxa la gaaray xilligii Yurub ay qabsan lahaayeen ajaanibku faaladaada xagga hoose noogu reeb naguna soo bir haddii aad nagu cusub tahay